waxaa waaye waxaan maanta halkaan isugu nimid oo aan ka tacsiinaynaa geeridii xanuunka badneed ee qalbiyadeenna taabatay ee qalbiyadda ummadda Soomaaliyeed oo dhan taabatay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi gacanka xaq daran ayaa dishay qof kastaba geerida waa dhadhaminaysa laakiin geerida ayaa kala xanuun badan geeri waxay ahayd moodkeena bedeshay geeri waxay ahayd dareenka dadka Soomaaliyeed oo dhan bedeshay ilaahay ha u naxariisto kooxaha argagixisada oo arxan laabayaasha markasta waxay laayaan eliidka dadka Soomaaliyeed laakiin tan tii waa ka bedelan tahay cidda fududeysay hawshii lagu dilay Aamina Maxamed Cabdi cidda fududeysay cidun baa fududeysay ilaahay aysan wax ka qarsooneen maalin un bayna cadaalad hor imaan doontaa insha Allah taala marka qoyska iyo qaraabadii ay ka geeriyootay ilaahay waxaan ugu rajaynayaa ilaahay inuu samir ka siiyo ayadana jannada iyo firdawsi ilaahay oo ka waraabiyo